anagu runtii intii aan meesha joognay waxaan qabsanay kalfadhigii u horeeyay si nabadgelyo ah la isku fahmay baan u qabsanay kaana markii uu hagaagay golihii joogtada sameynay runtii inaan wax dhaqaajino ayaanu ku dadaalay waxaan sameynay inaan dhisno maamul daadejin ah dowladda hoose maanta halka golaha waxa jooga agaasimayaashii agaasima waaxda hawlaha guud iyo agaasimaha hadda ay muuqda arrimaha bulshada in qayb kala fadhiyaan waa laga yaabaa laakiin hadda labadaan ay muuqda runtii waxaan sameynay maamul daadejin ilaa iyo madax qaybadadii waanu diyaarinay dukumiinti wixii la oran jiray ee dowladda hoose ku shaqeyn jirtay nooc kasta uu yahayba waa diyaarsan yahay maanta intaas waxaan maleeyaan joognaa anaga dowlad garanaysa waqtigii bishii 9 baa xilwareejinta lagu sameeyay anaga kalfadhigana waxaan qabanay 14 bishii November intii ka horeysana iyo intii ka dambeysay waxaan suganay waqtigii dowladda wasiirada la magacaabay waa arkayseen laakiin hadda fursadu noo harsan oo kaliya waxay tahay markaanu amnigii iyo nadaafadii iyo maamul daadejintii haday xaafada tahay iyo haday dowladda hoose tahay iyo haday tahay la shaqeyntii amniga inta markaan soo maray hadda baraarujintii bulshada hadda waxaan sameynay inaan u diyaarino jaangooyo cashuurati ugu hooseysay ee beeska qofku aanu dhibsadeen hadda u diyaarinay inaanu bisha 6 ku bilowno hadii alla yari anagoo runtii jecel ganacsatada iyo dadka maaragtay horumarka aad daneynayaba inaan la ogaadaan oo soo bandhigno marka waxaan islahaa dhowr qodoban soo qortayo markii gudoomiyuhu hadlay waxaan gartay in dawladda hoose ay xog badan naga maqan tahay oo yani intaas oo shaqo oo la qabanayo badankeedba inaan warbadan waxay leeyahay ku bogaadinaya in shaqeynta la eeg muddada yarada ay joogeen ay qabteen qodobka koowaad waxaan rabaa inaan ka dhigo runtii isbedel badan baa la dareemay muddadii 6 bilood ahayd waxaan anigu habeenkii ay kala fadhiga koowaad markii laga soo baxay loo bandhigayay bulshada qodobada u qorshaysan 6 bilood in dawladda hoose ay qabato waxyaabaha la taaban karo ee aan rabno inaan hadaan nahay bulshada iyo dhalinyarada degmada badan aan rabno inaan dawladda hoose aan uga mahadcelino waxa kamid ah amniga waxyaabaha koowaad ee ay priority-ga ay markaa ku soo bandhigeen inay siinayaan waxa ay amniga runtii alxamdulillah 6 bilood inaan dhaaftay waxay ahayd magaalada waxaan dhihi karnaa waqtiga ay ugu amniga fiicneed yay ahayd in iyada halkii laga sii wado oo runtii la sii xoojiyo wacyigelinta waxyaabaha ah bulshada waxaan maleeyaa awaare waa ka hadlayay in bulshada lagu qanciyo dowladnimada waxaan ogol lahay in la sameeyo guddi la xisaabtan la xisaabtanta xildhibaanada dowladda hoose dakhligu markuu soo baxo dukumiintiga in la ogaado dakhliga soo baxay in la ogaado boqolkiiba 20 baan ogol lahay inaan service ka dhigno laakiin 80 la geliyo waxqabadka deegaanka laakiin waa marka hore cashuurta la qaadaa marka waxaan ku talin lahaa golaha deegaanka isagoo kaashanaya maxaa la dhahay waaxiisa magaalada inuu dadka u qabto maxaa la dhahay barnaamij wacyigelin ah oo ugu horeyso waxaan oo dhan shaqooyin ah wax hoos geliyaan in la helo cashuur la qaado cashuurtaasna wax loogu qabto markay dadku arkaan wixii la qabtay oo la taaban karo bay dhiiran karaan oo ay garab istaagayaan dawladda in warbixinada dawladda hoose iyo waxqabadkeedu dadka la gaarsiiyo iyagoo isticmaalaya social media ama page-ka iyo Facebook kuliin oo kale hal midna u soo jeedin la gudoomiyaha dhibaatooyin fara badan ka jirta oo inta badan waxa laga qabtay boqolkiiba 80 qaba dhanka amniga dad fiican yahay bilicdu waa wanaagsan tahay wadooyinkana wax fiican baa laga qabtay oo dhowr xaafadood ama dhowr wadooyin oo dadku ku dhibaanayaan wax fara badan laga qabtay in la isu warhayo bulshadii iyo dawladda hoose warbixinada warqadda dhalashada oo kale ID-ga Puntland oo kale waxa in la qaato dad fara badan kama oga magaalada ma oga aan dhaftiga dhawaan baan ogaado oo ka qaata gudoomiye maxaa ka qorshaysan dhulka danta guud ee magaalada dadku u sameeyeen danta guud maadaama ay dadka oo dhan reer barmoodka oo dhan ay ka dhaxayso oo dhan dhulkii guud uu yahay maxaa idin ka qorshaysan danta guud waxaan furnay ama aan dartar gelinay ama shaqooyinka iyaga ugu badan aanu gelinay sida aan u sameyn lahayn ama u buuxin lahayn wadooyinkii oo roobab ku jareen ama wadooyinkii aan xirnaa ay xireen dhirtan la dhaho garanwaaga waxaan olala ballaaran ku haynaa hadaan nahay aniga iyo shaqaale hoosaadkayga ee hoostaga
in aanu jirno saa soo sheegay dhirtaas amni darro aad u badan baa ka dhalan jirtay haddeer aad bay u yaraatay sidoo kale waxaanu wadnaa dhirayn magaalada bedelkiisii geedka aanu jarayno bedelkiisii dhirayntii marka waxaan anigu aan hadda aan bogaadinayaa in la badiyo kulamada noocan oo kale ah ee lala yeelanayo dhalinyarada arrimaha bulshada waxaan wadaa qaybaha bulshada oo dhan sida haweenka aqoon-yahanka dhammaan in la badiyo kulamadan oo kale gudoomiye marka waxa ka soo bixi kara dadka kani waxa ay qabaan iyo aaraada ay hayaan in la weelayo oo marka haddii ay talooyin iyo ra'yo intii la diiwaan geliyo hadhow soohan action oo kale ficil loo bedelo marka kulamadan oo kale in la joogteeyo baan xoojinayaa horta intii badneed cashuurihii iyo nadaafadii magaalada waa laga soo sheekeeyay dhirayntii iyo gudoomiyaha ka soo hadlay gudoomiye magaaladu waa bilaa wadooyin barantii hore waxa u maleynaya waxa ka liidataba barantan hadda dhismaysa waa bilaa wadooyin imika hadda tagtid magaalada hoos oo dhismaysa 40 mitir buu qof kasta leeyahay qof guriga waa iska dhisanaya wado male 40 dhinac waa laga degan yahay xitaa meel hadhow booyid u soo martay meel gaariga soo maray iyo meel wado ahba ma jirto ma garanaysaa marka ma jiraan qorshayaal sanadle ah ama 5 sano ah ama inta joogtaan ah ama asbuucle ama bil ah oo hadda dawladda hoose u dejisan amnigu waa silsilad isku xiran oo badatay maalin leeyahay tusaalahan waxaan tagay qaybta garsoorka maxkamadda degmada runtii waxaan ku arkay waa maxkamadaha mid kamid ah maxkamadaha ugu si loo hagaajiyo loo qalabeeyay Soomaaliya ugu horeysa hadda soo gudoominoo shaqo amnigu soo hagaagayay ilaa 140 kiis oo dhacay baa la gudbiyay goorta sababta dhibaatada jirta oo baahida ah in kalbeedkii dhacayay oo loo dadka loo xawilayo oo magaalada kale loo geynayo dadkii la dhaqan celinayay oo magaalooyinka loogu hayo miya xalinka qaban karin weyn kiiskaas gudoomiyaha su'aashaas aan weydiin lahaa halkan dadka la qaado askarta way ka shaqeynayay dad xukuuman baa la qaado qof aan xukuuman lama qaado qofka la qaadayo laana waxaan shaqeynaa miisaaniyada waxaan ku jirin jeelkeennii nidaamka amnigana isagana waxaan rabnaa inaan wax badan ka sii qabano waxaan jecelahay in la inoo furo oo aan u qeylino jeelka halka qofka loo direeyay meel kale oo caadi ku dhibtoonaysay in halkan dhow qofka jimcaha loo tagi karo markasta caafimaadkiisa laga warhayn karo kuwa beerlowta la xiray caafimaad darra ka dhacday jeelasha gudoomiye haddii aad rabtid in magaalada aan wax ka qabanno dadka maanta ku hor fadhiya shaqo geli baran waxa u qabsan magaalada waxa weeye dadka aqoon-yahanka ah oo la rabay inay magaalada jiheeyaan oo dawladda la shaqeeyaan baa meesha ka maqan iyaga ay tahay aqoonta anaga waxaan ka saacidi karnaa wixii wacyigelina wixii arrimo bulshada oo dhan inaanu samayno waajib bay nagu tahay waayo waa waxa qof walba magaalada iyo deegaankiisa mas'uuliyad baa ka saaran waxaan golo fresh u badan oo aan hore u soo shaqeyn waxa loo baahnaa goliyana tababaro dawladda hoose in tababaro runtii tababarku waa dhimayaa tababarkuna waxa weeye waa meesha ka soconayaan qofku inuu aqoontii wax ku hogaamin lahaa wax ku shaqeyn lahaa inuu helo waa muhiim haddii aan tababar la helin waa indhalaan moogtahay laakiin waxyaabaan loo bilowna waa jireen oo anigoo kaleeto hadda dowladda dhexe waa gobolkan ku qoraan jirayo ilaa 2006 waa la yar shaqeyn jiray xagga aqoonta dukumiintiyada xabaha iyo siyaabaha telefoonka iyo aad baan wax uga aqaanay laakiin waxay u baahan tahay wax kasta in si mugle tababar loo helo runta cilmi baaris iyo horumarinta hadaf